muqdisho oo gashay marxalada adag oo kala duwan sanadihii la soo dhaafay maanta waxa ka jira isbedel aan la saadaalin karin halka iyo heerka uu ku ekaan karo 4 sanadood oo ay caasimadu ka socdeen dagaal xoogan iyo dilal qorsheysan oo lala bartilmaameedsanayay waxgaradka bulshada ayaa maanta waxa la oran karaa waxa ay noqdeen kuwaasi kuwa hoos u dhacay inkastoo ay jiraan wali qorshayaalkii ismiidaaminta iyo qaraxyadii xaafado badan oo kala qoqobna ayay maanta dadku dib ugu soo noqonayaan guryahoodii hubkii darandooriga u dhacayay duqeyntii joogtada ahayd iyo dagaaladii iska horimaadka ahaa oo mirkii dhexe hurdada dadka looga toosin jiray sanadihii la soo dhaafay ayaa sanadkan bartamihiisa wixii ka dambeeyay waxa laga dareemayaa hoos u dhac hase yeeshee taasi bedelkeeda isgoosyadii ugu dadka badnaa magaalada muqdisho ee sida howlwadaag baar ubax ilaa iyo cali kamiin iyo meelo badan oo camirnaan jiray caasimada ayaa waxa aad ku arkaysaa guryo burburay oo ay qaarkood dadku xilligan dib u dhisanayaan suuqa oo markii hore ciidamada militariga ay joogeen ayaa waqtigan waxa jooga ciidamada booliiska oo iyagu sugaya nabadgelyada dhinaca kale sanadkan magaalada muqdisho waxa ay martigelisay kumanaan qaxootiga oo ka soo barakacay gobolada dalka abaarta ka jirta awgeed waxaana muuq dheer indhahaagu ay qabanayaan guryo cooshada ka samaysan oo ay degan yihiin dad fara badan oo barakacayaala xaafadaha Shibis iyo Cabdicasiis waxay ahaayeen goobihii ugu quruxda badnaa xagga bilicda isla markaasina ay ku yaaleen hoteeladii magaalada muqdisho ee loo soo tamashla tagi jiray iyo xafiisyadii dawliga ahaa maanta se dad badan oo yaqaanay ayaa marka ay arkaan barisamaadkii wax badan ay iska bedeleen isla markaasina inay gartaanba ay ku adag tahay Cabdi Axmed waxa uu kamid yahay odayaasha dhaqanka mid kamid ah xaafadahaasi waxa aan kula kulmay halka loo yaqaano kilometer 0 amaba uu ka bilowdo cabirka magaalada muqdisho waa kilometer 0 meesha laga kilometer gareeyo xamar muqdisho laga la xaga ilaa xaga labada dhinac meesha kilometer 0 baa leeyahay halkaas ka bilaabanaysa xaafadda dhinaca ay naga xigta xaga waqooyiga waxa weeye waa Shibis wixii xaga ay naga xiga koonfurta waxa la yiraahdaa Cabdicasiis meelaha muhiimka haddaan idin calaamadiyo halkan waxa la yiraahdaa Fiyaad waa hoteelka Fiyaad halka waxa inooga muuqda halka waxa inoo Jubba inooga muuqata waa hotel aad qaali ah buu ahaa burburka ku yimidna waa idinka arka dhulka la samay wax walba halkan waxa ku taala kaniisadii Talyaaniga ayaa ku taala gidaarka laga bilaabo wixii xagga ka xigay ilaa ay meesha ku dhamaato waxa weeye kaniisadii weeye halkan Fiyaad dhinaceeda waxa ka muuqanaya burbur weyn iyo daarad burburay waxa weeye waxa lagu xanaaneyn jiray ardayda gabdhaha iyo wiilasha ayaa lagu xanaaneyn jiray halkan waa isgooskii Monopolio aqalkan aad arkaysaan ee sida weyn burburka ugu soo gaaray waa hoygii ee sarti lagu magacaabi jiray Monopolio laguna keedin jiray sigaarka sidoo kale dacalkayga midiga waxa ku yaala baar caanasan oo isagu sida idin muuqata dhufaysay dagaal u ahaa kooxiga halkan ku hardamayay kasoo burburka lixaad kale ee soo gaaray qaybo kamid ah magaalada muqdisho haddana waxa muuqanaya dib u dhis meelaha qaarkood laga sameeyo dadku isla markaasina ay guryahooda dib ugu noqonayaan dekada weyn ee magaalada muqdisho waa halbowlaha dhaqaale ee gobolka Banaadir waxa ku xiran waqtigan dhowr doomood iyo waliba ku dhawaad 10 markab qaarkood waxa ay sidaan gargaar loogu talagalay barakacayaasha magaalada muqdisho waxaan la kulmay mid kamid ah ragga kabtanada loo yaqaan ee saaran maraakiibtii siday shixnadahaasi deeqda ah nearly 15 days nearly ugu yaraan 15 ayaan soo safraynay magaalada muqdisho inagoo soo marnay badda Mediterranean-ka waxaan sidnaa kaalmo ka timid wadanka Turkiga waxaana soo galbiyay maraakiib dagaal oo badan oo ka socday wadamada Ameerika qaramada midoobay Turkiga iyo waliba Japan maamulka dekada magaalada muqdisho ayaa VOA-da wuxuu uga warbixiyay tirada maraakiibta iyo doomaha ee taagan dekada weyn ee magaalada muqdisho gaadiidka taagan dekada xilligan uu wado waxa u badan sabafal شحنة
wala marmaan jira tirada gaadiidku hadda xiran waa tagtay marsada xilligii badfurankiyaa la gaaray oo ay doomo imaan jireen ilaa iyo 8 doomood iyo 6 markab hadda way ku sugan yihiin gudaha dekedda ankorka iyo nawaqaar baa jooga socodkoodii iyo safaradoodii qaybo kalena waa ku soo jiraan waa soo dhow yihiin marka shaqada dekeddu waxay joogtaa xilligii oo badfuranka hadda bilow ah ha ahaato dhinaca gargaarka ha ahaato dhinaca ganacsiga waa meel fiican maraya magaalada muqdisho marka aad eegto goobaha ay dadku ku badan yihiin sida aaga lambar 4 iyo waliba suuqa xamarweyne ayaa dadku waxa ay ka baqayaan inta badan inay dhacdo qaraxyada waxaad arkaysaa dad fara badan oo aad u kala cararaya marka ay arkaan ciidamada AMISOM ee kolonyada ku maraysa aagaasi xilliyada qaarkood marka deegaanadaasi ay ka dhacaan israsaaseena dadku waxa ay dareemaan cabsi weyn ayadoo taasi ay sabab u noqotay dhowr gooro hore oo aaga number 4 ay ka dhaceen qaraxyo isbitaalaadka magaalada muqdisho ayaa ah goobaha ugu badan ee ay daadsan yihiin dad rayida oo iyaga galabsan xeebta liido waxa ay ka mid ahayd goobihii dhufaysyada u ahaa dhinacyadii ku dagaalamayay magaalada muqdisho xilligaas ay ku adkeed caruurta iyo dadka magaalada muqdisho inay si xor ah ugu dabaashaan dadku maadaama ay ahayd meel dhinacyadu isku ugaarsanayeen haatanse sida idiin muuqata dadkii ayaa dib ugu soo noqonaya sidii caadada ahayd maalmaha jimcaha toddobaad walbaba inay u soo tamashla dabaal iyo waliba ciyaar tagaan xeebtaasi gaar ahaana da'yarta qaarkood ayaa su'aalay dareenkooda siduu ahaa waxaan joogaa xeebta liido waxaan ka imid degmada Wardiigley waxaan ku faraxsanahay maanta inaan si nabad u imaado liido waxaan ku faraxsanahay marka in ammaankeena ay dawladda ku meel gaar ka sugayso marka waan ku faraxsanahay imaanshaha xeebta liido maanta ilaa muddo aanoo imaanin maanta inaan imaado xeebta liido waan ciyaarayaa maanta waan ku faraxsanahay imaanshaha xeebta liido waa markii ugu horeysay oo boqolaal dhalinyaro ah oo kamida dhalinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho ay yimaadaan xeebtan liido waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo ciyaaraya kubadda halka kuwa kalena ay dabaal u galayaan gudaha badda baddani ayaa in ku siman 3 ilaa 4 sanadood waxay ahayd goob xero u ah amaba dhufaysay oo ah qaybihii ku dagaalamayay magaalada muqdisho laakiinse ammaanka ayaa saakayto waxaad arkaysaa in boqolaal dhalinyaro ah ay ka faa'iideysanayaan xeebtan iyagoo ku dabaalanaya Sahra Cabdi Axmed VOA Muqdisho